tahriibina maamooyinka masaakiinta ha dhibinina dalka hooyo ka shaqaystaan sadhiyaha dhalinyaro ka shaqaystaa xoog waa leedihiin maanta waa shaqaysan kartiin karti waa leedihiin awoodiina tusa inaa ka shaqaysan kartiin si walba hadaa ka shaqaysta Kawsar Cabdulqaadir waa hooyo dhalinyaro ah waxayna dhabarka ku qaadaa mashiin lagu shubay shaaxay ku soo karisay gurigeeda iyadoo ku iibisay wadooyinka Garowe si ay u maareyso nolosheeda. Kawsar Cabdulqaadir waxay ka mid tahay gabdhaha ku nool magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland waxay markaasi wareejinaysaa oo ay dhabarka saarsatay haan uu ku jiro shaah isla markaasna ay dadka ka iibinayso meherada fadhiya ama wadooyinka lagu weynayo. Kawsar soo dhawow shaah ka jabiya waka dadkan ka iibiya wadada marayo dadka aadi kareen maxaa la dhahaa meesha meelaha meheradaha ku dhaween areas ka iibiya waxa ogahay dalka hooyo inay nabad tahay oo la ka shaqaysan karo inta ogahay kaasna marka arinta goor drow walaal sanad baan ku jiraa marka sanadka ka waran ku jiray iyo markaad bilaabaysay iyo hadda maxaa فرق أسلحة هاي وقوسه كله. الحمد لله يسوق لي الحمد لله فرق جهراء يحد فرق وين بخد حياة الحمد لله. qaar ka mid ah dhalinyaradu waxay ku doodaan in aan dalka shaqo ka jirin ayagoo badaha u jiira si ay u helaan nolol ka wanaagsan midda ay markaas ku nool yihiin laakiin Kawsar isma dhiibin badna ma jirin gurigana ma fariisan wallahi dadka xagee ka timaaday caalamkaas miyaa ka timaaday Oromo miyaa xagee ka timaa Soomaali ma waxyaalo badan qaar idhiiri garinay waa arkaa waka dadku waxay yiraahdaan meel kale ka timid ha alxamdulillah لما كمان من دولك هويا إن كل شيء وكون بدلنا أصلا يعني وكاس هويا أنا هاي ده عنقيقة إن أنكر صدوق وحصص نفتي سي يعني جا نفتي إن مارين كرو ده باهي إن قف كبرين يعني نفتي ده ساسا كشرة مسؤولية هويا إسارة يعطي أبو أنت سأقول هاي الحمد لله أنت إن قصب حاجة على هاي Kawsar waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay aragtida dhahaysa wadanka shaqo kama jirto iyadoo xustay in dalkeenu uu yahay mid dihin cogorna ah balse qaabkii looga faa'iideysan lahaa aysan dhalinyaradu wali garan waxaas waa been dhulkooy waa hodan inta aamsanahay qofkii niyad tahay inuu shaqaysanayo uu shaqaysan karaa inuu shaqaysto maanta wax walba uu qaban karaa loo miyaa tiri meel walba wax ka soo qabtay uu soo qaban karaa shaqada ceeb ma laha tuu shaqaysan niyad ka tahay shaqadiisa alxamdulillah shaqaysan kara qalabkan marka xagee laga keenay alxamdulillah ilaahay khayr ha siiyo wiil baa isiiyay abaalkiisa ma gudi kare insha Allah wixii ku shaqaysan insha Allah oo eeridan kama foga alxamdulillah xagaas aan had celiniya abaalka ay ma gudi kare in adeer alxamdulillah in adeer kaas wiilkaas abaal weyn buu leeyahay wiilkii biyay aanoo cunugeyga wato xambaarsanaya termuus afar termuus wato de ayuu isiiyay alxamdulillah maanta waxay inuu heerka inaan gaaro maanta isaa xaq ku leh walkaas inay saa gaarsiiyay maanta dadka maraya wadooyinka ayaa macmiil u ah kii gaari wata waa u istaagaa kii lugeynayana ma dhaafo waxayna ku dhiirigeliyaan shaqadeeda iyo inay halkaa ka sii wado gabadhan waxay ka mid tahay horumarada Garowe ku soo kordhay dadkeena iyo gabdhaheena iyada loodkeeda ah waxay ka sugaan lacagaha meel khaldan laakiin gabadha tan way shaqaysataa waa gabar xalaala iyadoon kiro iyo cidna laga qaadayn oo labisada xijaaban saa u jeedaan beeshaheeda gadataa asaageedu way tahriibaan barkood TikTok ta wareegaan waxa oran la inta tahriibi lahaydeen ama TikTok gali lahaydeen waaridkiin marna calal xumo iyo lacag la'aan iyo faqri isku dar lahaydeen sida gabadhan camal shaqaysta shaha gada cema shaw waxa dhici kara waaridka qayb caana dadka koriya anaga waaridkay caanay nagu koriyeen qayb shaha gada qayb hilibka gada marka waxa oran lahayn gabadhan way sharafan tahay aakhirkana mustaqbalka waxa u rajeenayay inay noqoto milyaneerada Puntland qayb siba kuwa Garowe waaweyn taskareynaya horta waa dhadhaminaya okay good way waa dhaka jabiye marka iyo mid saddexaadba waka gabadha waxaan leeyahay hor soco shaqayso ma sha Allah ma garatay
waa gabar shaqaysanaysa waxbay soo saaraysaa waa delivery meesha rabtay geenaysaa meheradda rabto geedkay rabto qofka soconaya qofka gaariga saaran intaba u geenaysaa maasha Allah waa service fiican weey barbilowgeedii hore iyo hadda ayay sheegtay inay u dhaxayso kala duwanaansho la xiriirta nolosha iyo la qabsiga bulshada waxaana tilmaantay in shacabku ay siiyeen tixgelin iyo dhiirigelin farqi kala dheer kaafi kala dheeri meel dhijiro wallahi niyadii kuma jirin maanta heerkaas ay gaaraysaa tarmuus oo korab ku bilaaway baashaan alxamdulillah haddana heerkaas maraya maasha Allah waka dhalinyarada ayay kula dardaarantay inay maalaan maskaxdooda oo ay la yimaadaan aragti ay ku maareynayaan noloshooda iyo midda qoyskooda alxamdulillah way dhaantaa alxamdulillah inuu xawaa dhaanto waa arkay hadda ilmahayga caanihiisa ka baxsan hadda arkay wax kale inaan raadi waa khalad noloshii maanta cuni hadda heliyo wax aan raadi ma garanayo daynta helay alxamdulillah maanta daal qadeenayo waa dad ba qadeenin maanta jira hadda maanta noloshayda qadeen karo cunugayga caanihiisa ka fikirayo heliyo alxamdulillah insa alxamdulillah aan dhihi karaa ilaahay mahadiisa iskale